waxaynu sheekadeenna ka bilaabaynaa taariikhda dabayaaqadii maskaramtii 2014 oo ku beegan Sebteembartii 2021 xilligaas oo ay si buuxda xukuumadda deegaanka ugu digarogatay farakuhayn rasmi ah talada deegaanka. xilligan waxaa bilaabmay qulqulatooyin siyaasi, dhaqaale iyo maamul baa oo isdaba joog ahaa. waxaynu ka hadlaynaa waa culays xidhiidh ahaa sanadkanba oo dhammaantood si qorisu dhiib isaga daba dhacay, mid walibana sababay culays gaar u ah hoos u dhac dhaqaale iyo kororka qaar baqdin laga qabay inuu meeshaba ka baxo nidaamka dawliga ahi. warbixintan oo ah qaybta koowaad ee taxanayaal aynu ku soo bandhigayno xukuumadda deegaanka iyo sanadka 2014 waxaynu kolkan soo bandhigaynaa carqaladihii sanadkan ay wajahday xukuumadda deegaanka Soomaalidu oo isugu jiray kuwa qaran, kuwa deegaan iyo kuwa dabiici ah, dhammaantoodna saameyn xooggan ku lahaa ama sababay guuc siyaasi ah, kacdoomo iyo hoos u dhac dhaqaale oo xooggan. sidaas oo kale waxaynu eegaynaa carqalad walba iyo sida ay uga dabaalatay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ama ay u maareysay. anigu waa Axmed Awga, halkanina waa JTN ee ku soo dhawaada warbixintan. aynu ku bilownay carqaladda koowaad waa doorashadii dalka dhacaysay, gaar ahaan deegaanka Soomaalida oo qaadatay waqti ka badan midkii loogu talagalay, sababtayna in ay darteed u istaagaan dhammaan adeegyadii ay helayeen shacabku, maadaama ujeedku ahaa in doorashada lagu aadiyay xilliga kala guurka 2 sano ama 2 bilood oo u dambeeyay sanadkii tagay. haddana waxaa soo darsay dibdhac ku yimi marar dhowr ah muddada loo gartay maalinta codbixinta. sidoo kale natiijada ayaa dibdhac kale la timi, isla markalena waxaa dibdhac kale keenay soo dhisidda xukuumadda deegaanka oo ugu dambeyn lagu guuleystay dabayaaqadii Sebteembartii 2021. 3 bilood oo ahaa dibdhac iyo isjiida doorasho waxaa hakaday inta badan adeegyo mashaariico socday iyo kuwa qorshaysnaa in laga hirgeliyo deegaanka. kolkii ugu horeysay ee la dhaariyay xukuumadda deegaanku waxay kolkiiba si halaaleel ugu dhawaaqday daldargelintii dib u nooleyn rasmi ah adeegyada loo hayay shacabka. mid ka mid ahna dadaalada kolkaas ay xukuumadda deegaanku dhawaaqday waa in la hirgeliyay maalmaha shaqo in si ku meel gaar ah loogu daro maalinka Sabtida oo ilaa iyo maanta ay shaqeeyaan inta badan mas'uuliyiinta xafiisyada deegaanku. horaantii Novembartii 2021 xukuumaddu iyadoo mar kale ka duulaysa dardargelinta mashaariicii qorshayaasha u yaallay ee adeegista shacabka waxay kolkaasna xukuumaddu kalfadhi aan looga baranin ku yeelatay magaalada Goday, kaas oo ay ku xadeysteen hogaaminta deegaanku qorshe hawleedyo ku jaango'an 100 maalin oo ah tijaabada iyo horumarinta adeegyada loo hayo shacabka deegaanka. ku dhawaad 2 bilood oo xidhiidh ahaa ayaa lagu xasuustaa horaantii sanadkan in xukuumadda deegaanku dhinacna uga bixin gudaha deegaanka, sameynaysa dardargelintii ugu badneed ee hubinta mashaariicaha socda, fulinta mashaariicaha horta leh iyo xaqiijinta hanaanka helista adeegyada kala duwan ee shacabka. carqaladda labaadna waa carqalad kale oo isla maalmaha soo ifbaxday, waana duulaanka ay xukuumadda dhexe oo kaashanaysa dowlad deegaanadu ku qaaday TPLF, kaas oo sababay culays siyaasi ah si gaar ahna deegaanka Soomaalida ka abuuray sawaxana iyo buuq ku aadana hanaanka ay u qaabishay xukuumadda deegaanku iyo go'aamada ay ka qaadatay duulaankaas. intii uu socdayna duulaankii TPLF waxaa soo baxay fursado aanan farta qodnayn oo ay ku maxafsadeen qaarkood xubno hadhaa ka ahaa talisyo hore oo iyagu sababay hug iyo hagardaamooyin ilaa maanta xal loo raadinayo oo soo gaadhay shacabka deegaanka. carqaladihii gaarka ahaa ee duulaankaasi ku sababay shacabka deegaanka Soomaalida waxaa ka mid ahaa warar iyo khuzac balaad si badheedh iyo si badhax ahba loogu warinayay laguna dhex tuurayay shacabka deegaanka oo ku aadanaa in ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu qaadatay go'aamo khaldan oo ay ku lugoysay ciidanka gaarka ah ee deegaanka. xilligaas adkaa xukuumadda deegaanku waxay adeegsatay sugnaasho quman iyo go'aano sal adag ah oo ay ku hanatay maanka shacabka ilaa markii dambe ay xukuumadda deegaanku qayb ka noqotay guulaha qaranku ka soo hooyay duulaankaas. carqaladda saddexaad mar kale isla dabayaaqadii duulaankaas waxaa aloosmay duulaan kale oo ka qarxay galbeedka City, kolkaasna ay isku farasaareen ciidanka gaarka ee deegaanka oo difaacaya shacabka reer City iyo jabhadihii canfarta ahaa ee ku soo duulay deegaanada Cadeyti, Garbaciis iyo Candhuufto. kol kale duulaankanina waxa uu sababay in ay madaxa la kacaan si inuu xoogeystaan doodaha jilicda sanaa ee ka soo duxayay hunguraaga oo kolkana wax ka dayay fasiraadda hanaanka ay xukuumaddu u maareysay duulaankii galbeedka City. labadaas duulaan ee iscilbinayayba waxay sababeen inay istaagaan in badan oo ka mid ah qorshayaashii iyo mashaariicii horumarineed ee shacabka deegaanka u qabsoomi lahaa, taas oo lafteeda eedeymo looga dhigay maamulka deegaanka Soomaalidu inay go'aamo khaldan ka qaateen duulaamadaas iyo maareyntooda. carqaladda afraad ayaamihii gunaanadka duulaamadaas waxaa mar kale si lama filaan gudaha deegaanka Soomaalida uga dilaacay doodo aan looga baranin
oo ay la shir yimaadeen qaarkood mas'uuliyiin ka mid ah xubnaha ugu sarreeyey bilowga qaabdhismeedka deegaanka isbeddelka kadib, balse shaqooyinkoodii ku waayey gaabisyo, cagajiid iyo hagrasho mas'uuliyadeed, kuwaas oo ku dhawaaqay waxay ugu yeedheen garabka sixitaanka xisbul xaakimka PP doodan oo ku soo hagaagtay xilli ay aloosnaayeen sawaxanno kale ayaa mar kalena keentay sawaxanno ugub ahaa oo ku xidhiidhay dardaarwarinno la leeyahay waxaa kala jabay hogaaminta xukuumadda deegaanka. qodobkani ma noqon mid sii jiitama, xukuumadda deegaanka ayaa ku faraadeegtay furdaaminta arrimahan hannaan waafaqsan xeerasha maamul iyo qorshayaasha xisbiga talada haya. carqaladda shanaad, isla xilliyadii aloosnaayeen sawaxannadaasi waxaa kor kalena soo darsay xaalad abaareed oo soo ifbaxday horraantii Noofembar 2021, taas oo keentay inay ku waxyeeloobaan abaarta dunyo malaayiin ah, barakacaana shacab tiro badan. abaartii sime ee dhowaanta laga soo doogay waxay sababtay culaysyo dhaqaale oo tiro badan, waxayna qarka u saarantay inay dhaliso macaluul. ku dhowaad 3 milyan oo shacab ah ayay saamayn dhaqaale, caafimaad iyo nololeedba ku yeelatay. abaartan oo hal abuurka deegaanku u bixiyeen laba kordhalad waxay noqotay midii ugu xanuunka badneed ee soo martay shacabka deegaanka Soomaalida muddo 25 sano ah. xukuumadda deegaanka ayaa awooddeeda ugu badan isugu geysay xakamaynta iyo maareynta khatarta abaarahan, waxayna xukuumaddu qoondeysay dhaqaale jeebkeeda ah oo laga jaray mashaariicaha deegaanka qoondeysnaa sanadkan. mar kalena waxay xukuumaddu qeyladhaan kala duwan u dirtay dhammaan saaxiibada deeq-bixiyaasha hay'adaha samafalka sifa ay qayb uga qaataan samata bixinta shacabka deegaanka. xukuumadda deegaanka oo ka duuleysana samata bixinta dadka iyo dunyada kana hortagaysa inuuna qof shacab ahay u dhiman macaluul, waxay si xidhiidha ugu daabushay degmooyinka deegaanka oo idil gargaaro cunto, dawo, calafka xoolaha iyo nafaqo ah. ku dhowaad 1 bilyan oo bir ayay xukuumadda deegaanku ku maaraysay abaartii qadhaadheyd ee soo martay shacabka deegaanka. abaartan ayaa mar kale la soo laabatay culaysyo kale oo ka dhalatay 2 gobol oo aan hadda ka hor ka dhalanin, ilaa iyo maantana waxa socda dadaaladii gargaarada lagula tacaalayo hadhaaga abaarta 2 gordhalaad. carqaladda lixaad, saamaynta abaarta waxaa cidhbiyey kolkii laga soo doogay abaartana soo ifbaxay sare u kac ballaadhan oo dhanka maciishadda ah, kaasoo hal mar laga war helay sare u kac ku yimi sarifka lacagta adag ee dollarka. arrintanina waxaa kol kale galdalool iyo fursad ka dhex arkay shakhsiyaad ay ugu baxdo fashil ku yimaada hannaanka maamul iyo tanaadka shacabka deegaanka Soomaalida. maalmo kooban oo siraadnaa sare u kaca dollarku qayladuna doluntay. mar kale waxa xukuumadda deegaanka Soomaalidu kolkaasna qaadatay tallaabooyin lagu xakameynayo, iyadoo tallaabooyinkaasna ay keeneen in si degdeg ah loola dagaalamo sare u kaca maciishada deegaanka. carqaladda toddobaad, ugu dambeynna waxa ilaa hadda taagan oo mar dhexda bilaabmay in la waayo shidaalka deegaanka, iyadoo xilli roobaadkan shacab iyo xukuumadba loo diyaar garoobay wax soo saarka beeraha. si gaar ahna xukuumadda deegaanku ay ku dhawaaqday barnaamijka ay wax kaga qabanayso cunno yaraanta iyo ku tiirsanaanta shisheeyaha ee dalag iyo daryeel. waxaa caqabad weyn ah helista shidaalka noocyadiisa, taas oo sababtay inuu dhasho walaac ku yimaada ka faa'iidaysi la'aanta xilli roobaadkan. carqaladda shidaal la'aanta oo ah mid saamayn ku leh in badan oo dunida ah ayay xukuumadda deegaanku mar walba u diyaarsan tahay xakamaynteeda iyo inay shacabka dulqaado culaysyada jira.